السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشنا قيمة هي قدرينتا مدن oo meel kastood caalamka ka joogtaan iyo si kastood noo daawanaysan ku soo dhawaada barnaamijkeena kormeerka wararka iyo kaftanka oo maalinimadan maanta ah aan idin soo gudbinayno anigoo Cabdiraxmaan Maxamed Axmed iyo saaxiibkay Barraa'il Kacsi waxaana si toos ah uga daawanaysaan channelada kale ah Haga TV iyo waliba Kismaayo Cable qodobada aad ku daawan doontaan aad bay u fara badan yihiin aad bay u xiiso badan yihiin Soomaaliya caalamka bariga Kenya dhawal baan idin ka dareynaa qodobka ugu horeeya hadii aan waxaana ku badan magacaabista qodobka ugu horeeya hadii aan dul istaago madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ee dhawaan la doortay Axmed Maxamed Islaam ayaa wuxuu soo magacaabay madaxweyne ku xigeenayaal cusub laba madaxweyne ku xigeen kii koowaad iyo kii labaad talo kuma noqon doonaan waxay noo dul istaagay qodobkaas iyo faafahintiisaba Barraa'il Kacsi aad ma santahay Cabdiraxmaan Fakado waa barnaamijkii kormeerka wararka iyo kaftanka oo daawadayaashu dabcan ay mar walba nagala socdaan channelada kala duwan Kismaayo Cable iyo Haga TV ay si toos ah u daawanaysan barnaamijkani haddii aan u guda galno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka oo ah magacaabista madaxweynaha Jubbaland oo sameeyay wareegta ka soo baxday madaxweynaha Jubbaland ayaa waxa lagu magacaabay laba madaxweyne ku xigeen dabcan awalba Jubbaland wali hanjit laba madaxweyne ku xigeen laakiin maadaama doorasho dhacday oo madaxweynaha la soo doortay cusub waa in magacaabis cusub la sameeyaa laakiin wax isbedel ma jiro oo madaxweyne ku xigeenkii koobaad iyo kii labaad ee markii hore jagadan haystay ayaa dib ugu soo laabtay iyagii baa kaarkii loo cusboonayay aad iyo aad Malaysia daba mariyay mise sidoodii ma ku soo galay say u kala koreeyay 4.5 ni walba markii madaxweyne ku xigeen koobaad waa Maxamuud Sayid Aadan oo markii hore ahaa midka labaad waa Sayid Luga Dheere Abdulqaadir Sultan Luga Dheere Luga Dheere oo isaguna madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubbaland ahaa oo markii hore way ahaayeen labadooduba dabcan waxaan u maleynayaa sababta loogu magacaabay haddana waa abaalgud baan ma hayaayo way halganka soo galay maamulka daacadda ah ayay kamid ah dadaal bay bixiyeen aad iyo aad marka warqada xafiiska madaxweynaha Jubbaland ka soo baxay ayaa maanta lagu magacaabay dad badan ba markii ay arkeen madaxweynaha Jubbaland oo magacaabay labadii ku xigeenadiisa yaa dabcan markii hore waxa la islahaa wax cusub la magacaabi doonaa laakiin markii labadii hore lagu arkay meesha oo dib loo soo cusboonaysiiyay waxa soo baxaysay inay ahaan rag maamulka daacad ah oo halgankii dheeraa ku guuleystay laakiin show in la isir daba mariyo waxba fiicnaan la soo ma waa habka qabiilka lagu qaybsado ee nidaamka 4.5 ka weeye marka hadii la is daba mariyo khilaaf baa imanaya marka beel walba marka waa in xilkeeda waa in booskeeda haysto aad iyo aad beel walba booskeeda ku marka wasiiraduna ma sidoodin bay ku soo noqon mise waa wasiirada waa wali loo magacaabin laakiin kuwa badan dabcan oo kuwa hadda sida labada nin hadda xilkoodii dib loogu soo celiyo kale taa yaa la filaya in dib loogu soo celiyo kuwa badan baa boos gaar kuwa maamulka daacadda oo ahaa ee laga shakisnayn iyo kuwa maartay halganka macallin Maxamed meeshiisa biska soo noqon ma aad iyo aad okay hadaan wax loogu daray okay hadii aan qodobka labaad u gubno waxa la hadana magacaabis weeye aad iyo aad qoladii ahlu sunna maxay sameysay saaka iyaga oo waxaan ogaa aan dawladan ahayn xaafna ahayn xaafuna ahlu sunna ahayn dawladan ahayn dawladii oo ahlu sunna ahayn xaafna ahayn wuxuu saa isu yar waxay dhaxyaacaya dhowr caasimadood baa jiray galmudug sibay isu yar dhax baxaysna ahlu sunna maxay sameeyeen niyahow horta ahlu sunna markaan fiirino xarig markii dawladdu xidho meel buu ka furanaya malaha dawladda waxa ay nafsiga Jubbaland waa Jubbaland maamul bay dhisato dawladda in waan rabnaa beelayn hadda dawladda in baahan kool ku taqraarinaysa laakiin iyagana kabtan looga meesay kuwa waliba inta ma nafsiga waxa ay adeer koonfur galbeed nafsiga koonfur galbeed wasaaraha meeshaas la dilooday moogta waa dhaweeyay wasaaruhu waa kii 5 iyo 40 beri u dhex fadhiyay 40 iyo 5 beri dhaqaale iyo dadaal wixii dawladdu ay hayso ku bixisay haddana mar alla markii la dhaho waa la heshiyo wax lagu heshiiba meel kale wax ka boodi kol xaaf badi kol ahlu sunna xarigaan adkayo xilli dhex maxaa furaan maqal jiray moogta meesha tigtaga ama meel kale bay firq qadrada haye waxaan ogeyn in maalmo dhaweyto dawladdu ay magacaawday guddi doorasho waana waa 13 xubnood ka koobnaa guddigaas waxa soo dhaweeyay madaxweynaha galmudug xaaf laakiin waxa ku gacan sayray oo ka soo horjeestay ahlu sunna marka waxay dhaheen heshiiskan dawladda la galay wuxuu ahaa 13 xubnood ee dawladdu magacaawday 6 anaga in la siiyo 7 dawladdu ay lahaato laakiin dawladdu inta ay magacaawday dhamaanba waa rag dawladda u adeega kuwaasi ahlu sunna ka yaaban tahay marka in madaxweynaha soo la dooran doono galmudug inuu noqdo mid ay dawladdu wadato waa wada green kul ragana magacaawday aad iyo qorta green marka ahlu sunna oo arintaas ka duulaysa xalay dabcan waxa magaalada Dhuusamareeb ka dhacay kulan xasaasiya oo dhaxmaray ahlu sunna iyo wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibadhiisa Maxamed Sabriye laakiin kulankaas wuxuu ku soo dhamaaday natiijo la'aan taasi oo keentay in saaka ay ku dhawaaqaan guddi doorasho ahlu sunna labadii guddi
dabcan kii madaxweynuhu magacaabay waa joogaan waa joogaan hay kii ehlu sunna ay magacaawdana waa waa joogaan joogaan hala soo dhex qaybiya xaafna mu kuwa kale magacaabo xaaf baa ma aqaano marba magacaabay baa lalahaa haddana mooji warqadiisi meel ay ka baraka beeshay mar baa la lahaa waxaa la siinayaa isaga ayaa hormuud u noqon doona nidaamka maamul dhiska galmudug hay laakiin haddiiba dowladda guddiga magacaawda u taageeray waxaa muddaa inuu dhabar ka jibinayo ahlu sunna ha wuu jabin dabcan waxaa laga yaabaa dowladduna inay ballanqaadi u samaysay hay oo markaasi uu sidaasi u dhabar jabiyey maya ahlu sunna xaaf iyo kolkay ahlu sunna iyo ishayaan federaalku waa isaga ciidiisa kolba marka midkii taag daran waa waxaan u inuu malayn dhowr jeer bay waxaa weeye xaaf lugaha u qaadeen nimanka ahlu Ahlu sunna sunna. marka hadda weli wuxuu ku jiraa aargudashadii maya nimanka ahlu sunna la yidhaahdo nima sahlan maaha waa kuwii xitaa intay ku bahadileen bahashii magaalada hadda dhuusamareeb cararay ee meelaha dhexda laga hortagay marka dambe ra-iisul wasaaruhu meesha tegey okay xaaf eraygu eersadeen wuxuu ahaa horta ugu horreeyey wuxuu ahaa qaraab baan raadsaday maya xaafne waa nin daacada kowdhe su-aalaha kolkii la weydiina sida qalbigiisa ku jirta iyuu uga oo jawaabay siyaasnin u Maxay wajahda waxaa la dhahaa waxaa jirta maamaha la dhaho 20 jin reer muduga ceebsa alla ma asturo waxaa la dhahaa reer mudugi macnaha maba qarsadaan waxba ma qarsan yaqaanaan hadduu fula yahay hadduu geesi yahay hadduu xaday waxaa ereyga igu qosol badan wuxuu yidhi maxaan shaqaynaa buu yidhi dowladdan la dagaalamay labadii sano xilgay cagahayna hayee bidhi annaguna la dagaalamayna arrintii marka waxaad ka doontaa carabta la yidhi waa qaraab yar doonay marka Hebel raadsaday. ninkaasi ha runta u La yaab busheegi ma lehe. runta u busheegi aad iyo aad marka xaaf waan u ducaynaynaa inuu ilaahay garab galo aad iyo aad oo ahlu sunna xumaysay oo maadaama marka hadda madaxweynihii uu dalka maqan yahay shalay uu aanbaxay dalka ruushka guddiga uu magacaabayna mid kale laga daba magacaabo waxaan sugaynaa dowladdu jawaabta ay ka bixisiyo bal qaabka maarata la isugu soo dhawaado okay marka waxaa moodaa weli maaragtay galmudug arrinteeda ina fare ka qodnayn oo kaloo meel ay kasii furmayso mar walba waxaan leenahay galmudug free galmudug dad baa degan wanaagsan oo shacab ah oo qiimo badan laakiin waa la qasayaa Aad iyo hal xamar ma xumee dad baa xumaynaya guddigii hore ee dabcan dowladdu magacawday waxaa kasoo horjeestay musharaxiin iyaguna u tartamaya xilka madaxtinimada ee galmudug oo uu ka mid yahay cabdiraxmaan odowa oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsan dowladda xasan sheekh maxamuud wasiir kasoo ahaa iyo isagana kamaal guutaalo xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur isaguna ka mid ah ayaana kasoo horjeestay may markagaas meesha diin waxba ku marka waxaa moodaa galmudug weli hawsheeda aysan fare ka qodnayn galmudugtu waa mid halkana wuxuu ku jiraa reer galmudug inay intay tashadaan toddobaad baa lagaga dowladduna wixii ayada ay awoodda ay ku kabto koonfur galbeed toddobaad baa lagaga baxay galmudugtan un galgalanaysa wala meel dhib yar maaha meeshaas aad iyo free baan laakiin leenahay aad iyo aad cadaaladda ha lagu soo dhawaado gobolkan hiiraan isu dabagalaa jawhar iyo beledweyn iyo waa hirshabelle maamka hirshabelle wey hirshabelle waxaa dhex mara waa dhul webi aad iyo aad webigii shabelle webiga shabeella ku ciyaara oo sidaa iyo sidaa iyo saa waxisba marka markuu soo fatahay ee biyuhu tan iyo herar iyo qundhuro iyo meel fog biyaha kasoo da uu soo qaado ee uu goday iyo soo mariyo unbay show isku ballaadhiyaan dhulkaas aad iyo aad waxa alla wuxuu la tegi karaa uu la tagaa beeralayduna show waxay kulaalaan webiga agtiisa webiga agtiisa ilaan webiga agti daankiisa ka generatorka meel uu biyuhu ka gaari baa la rabaaye waxaasoo dhan intuu xaabka u qaaday dadkaasi kii naf la bixi uu duurka aada aad iyo aad waxaa hadda marka nagu maqalaa inuu webigii fatahay. sidii rabo ugu fatahay aad iyo aad dadkiina ay barakac waa tahay waxaa fakaadhow hiiraan baa fatahada ka dhaceen qoraal dowladda ay soo saartay oo ku qornaa afka ingiriiska waxaa lagu sheegay in ilaa dad gaaraya 12,000 oo ruux 12,000 oo ruux Hay. ay ku barakaceen gobolka hiiraan wuxuu hoos yimaadaa maamulka hirshabelle Hay. oo uu hogaamiyey madaxweyne cabdi waare oo isaga hadda lagu naanayso lugta gareen lugta gareen gareenada dowladda gareenada dowladda kamid ayuu ka mid yahay haye cabdiweli gaas baa joogin muna kamid noqdeen aad iyo aad Haye. dadkaas macnaha oo ku barakacay gobolka hiiraan aad baan uga xunnahay dowladda iyo waxaa weeye hay-adaha gargaarkana waxaan leenahay hala gargaaro su-aal baan ku Ilaa weydiiyey gargaaro, dowladdaa soo saartay miyaa warqadan ingiriiska dowladda soo saarta haa okay waana hiiraan meesha lagu barkacay gobolka hiiraan haa sidaan ognahay waxaa jira yani maamulka yani xukuumadda federaalka xildhibaanadeedu aad iyo aad meesha ku xareysan muqdisho jooga nin walba wuxuu ka socdaa tuuli iyo magaalo iyo qoys iyo reer deegaan baarlamaanadu ka deegaan baarlamaaneed ka socdaa nin walba marka ku xafiis ka furta deegaankiisa iyo aad iyo aad ku uqayliyaba nin walba deegaankiisa wixii dhibahe uu muto iyo wixii si fiican. sidii federaalku wax uga qaban lahaa sidii ugu dacwoon lahaa yaa xil ka saaran iyo meesha jooga aad iyo aad ilmihii xataa maamulkiisa ka yimaada ee shahaado iyo wax u baahda aad iyo aad siduu ugu fududayn lahaa si fiican
xildhibaanada kasoo jeeda hirshabeelle kuwooda ugu dhawaaqa badan yaa jooga muqdisho oo kamid a federaalka aad iyo aad mar kastana waxaa kamid a ninka la yidhaahdo amiin jeso daahir oo mar alla markaad aragtaba life ku jiro labadaa un abur ka tuuri oo maamul kale un haysta aad iyo aad kol somaliland ka lusha inta badanna caado ay u noqoto inuu jubbaland un dhex fadhiyo muxuu marka ma ka hadlay oo ma yidhi hirshabelle waxaas baa nagu dhacay oo balaaga nama siibtay maya muxuu maagaya niyahow dad badan baa isweydiinaya daahir amiin jesow sababta uu mar walba jubbaland uga hadla laakiin uga hadli layahay gobolka hiiraan dee markii abaar ay ka dhacdo markay fatahaadaha ka dhacaan waaba labadaa un maadaama isaga dee hirshabelle uu isagoo kasoo jeedo oo uu xubin baarlamaana oo maamulkaasi dowladda ugu jira ama baarlamaanka ugu jira uu yahay dad badan marka waxay isweydiinayaan sababta hadda dee uga hadli layahay doorashadii jubbaland dabcan jubbaland xaq buu leeyahay inuu ka hadlo de waa xildhibaan Soomaaliyeed laakiin waa gacantiisii labaad jubbaland dad Soomaaliyeed baa dega laakiin in deegaan doorashadiisiina uu ka hadli waayo midna xaq buu ugu leeyahay inuu ka hadlo midna waajib bay ku tahay aad iyo aad marka tii waajibka ku ahayd muxuu gabay daahir waa gabay waxaan leenahay daahir deegaan baarlamaankii laga soo doortay 10,000 oo ruux ku barakacay haye oo waxa weeye fatahaadaha webiga Shabeelle oo ciriir dhul meel aan joogin hadda aad iyo aad oo dawladii xitaa war ka soo saartay dawladii marka aad u hadli jirtay maaragtay aad baarlamaanka uga mid ka ahayd ayaa ka hadashay arrintan adigoo xildhibaanka deegaanka laga soo doortay ah maada ka hadlin jubbaland aad baad uga hadli jirtay weliba waa nin aan tv waayin iyo wuxuu kolba isku soo ururiyo codkiisu meel dheer gaadho aad iyo aad marka sababta kolku wuxuu wax kala qaban waaya live facebook buu galaa intuu geed hoos fadhiisto weliba waagii hore weliba warbaahinta aad idaacadaha iyo tviyadu tagi jireen hadda maalintii u dambeysay madaxweynaha jubbaland la calama saaray koofiyad weyn xidhay geed hoos fadhiisay kamaradu soo bal maxaa u dirsaday maxaa waa akhriisi haye bal hadda waxaan leenahay daahir amiin jesow oo arrinta hirshabelle ka hadlay iyo 12 ruux ee ku barakacay gobolka hiiraan aan aragno okay qodobka haddaan inta ilaa jubbaland oo doorashada waxba ka gelinna waa ki dhex walaaqayay ilaahu ay tusbuuri laba arki mahaye inaan laba arkayn anaa hubee ilaahu tus amiin jesow oo ka hadlaya arrimihii loo dirsaday loo xil saartay xildhibaan markaad maqasho waa nin xil ku dhibaya moogta laakiin daahir oo kale ma aha daahir waxaad moodaa inuunan xilka saaran ee maamulkiisa u hayo uunan dhibaynin marka hadduuna xilku dhibayninba qofka uunan dareensanayn xildhibaan ma noqda waa xilmo saaraa la dhaha xilmo saara okay taalooyin fara badan baa jiray oo muqdisho laga taagay oo midba dhan u jeeday oo la isku qabsaday Sambaloolsha wacad ku maray inuu dhulka la simi doono ma hubne Sambaloolsha bixintaas xaqiiqada ma hayno laakiin dabcan Facebook waa lagu soo qoray qofku laakiin ma ana Facebookiisa inuu galiyo arkay haddii waad artay laakiin Facebook asagu rasmi u leeyahay kale ma ogid ninka waa iskaga dhagan tahay adigu wuu diidi lahaa haddii una ahayn inta xisbiga ku jira xisbiga Maxamuud baa ka saartay oo tiri kuma daran haddaan u warkaas xisbina ma ka ah marka xisbiga xasan ku jira waxaa la yidhi dawladda taatan wixii ay qabataba waxba ka soo daba fakada aad iyo aad balaayo reer kaamil u jeedaan maqli jireen lacagta safaarada lagu gaday xagee laga keenay ayba waa dhaweyd la lahaa iyo waa la garan waayay iyo meel baa laga musuqay oo baa balaahay madaxweynuhu wuxuu yiri waa tii aan ra'iisul wasaaraha lagu ridi jiray on aroornay bayla meel kale u sheegay oo qadar iyo waxba meel tii markay dintay lacagtii taalooyinka iyo kharashka lagu dhisay iyo taaladu waxay tahay iyo ha waxba bal noo yar dumar aad ma sida Cabdiraxmaan Fakaado hadii aan warbixintaas dul istaagno oo warbaahintu ay baaritaan ku sameysay barnaamij waxa jira isxilqaan la dhaho oo muqdisho muddo ka socday oo $1 aad iyo aad oo iska wax u qabsaa oo madaxda dawladda xitaa ay ka qayb gasho maartay xitaa jidadka oo la xaqi iyo qashka magaalada laga ururiyay dhismo la sameeyay iyo taalooyinkii hadda labadaasi barnaamij ba hadda aad maalmahan isxilqaan wali uu sii horeeyay laakiin taalooyinka markii la dhisay isxilqaan soo cusboonaaday kharashkiisa meesha laga keenay cid maamusha waxaan ognahay taalooyinkii hadda la sameeyay in madaxweyne farmaajo xarig ka jaray laakiin ra'iisul wasaaruhu xitaa facebookiisa kuma soo hadlin gudiga hadda taalooyinka dhisay iyo gudiga isxilqaan labadaba madaxweyne farmaajo magacaabay isagana kor joogtay kharash ku baxana waxa la sheegaa in ay ka yimaadaan dawlado hay'adaha caalamiga iyo waliba ganacsiga Soomaaliyeed
waxaa la sheegay wasiirro fara badan baa wax laga weydiiyey arrintan wasiirkii hore ee xilka iska casilay maarata warfaafinta lihi jiray daahir oo kaleete waa uu arrintaasi mar wax laga weydiiyey arrintaasi inuu wax ka ogaya in kaleete waxa uu ka gacan taagtay waxba kama ogola arrintaasi ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa nin uu hadlo magaciisa sheegin wuxuu sheegay in kor ahaan ay ka warqabaan laakiin wax shaqo ay ku leeyihiin uusan jirin waayahan dambe ragga hadlaya daran baa cod qariyaa badan aad iyo aad wala kala cabsada amniga aad iyo aad dowladda wuxuu shughul shaqo kuma leeyahay aad iyo aad wasiir Bayle oo ah wasiirka maaliyadda waxa la sheegay inuusan ka cabsanin inuu hortaga baarlamaanka Soomaaliya la xisaabtan lagu sameeyo sidoo kale hanti dhowrka inuusan ka cabsanin baa la sheegaa waa nin adag wallahi buu qabaa wuxuu ka mid yahay waa gardarra garow wuxuu ka mid yahay wasiirada la dhaho isagii ra'iisul wasaaraha madaxweynaha way kala leeyihiin tusaale ahaan wasiirka maaliyadda oo kale Cabdiraxmaan Bayle ducaale wasiirka amniga Islow iyo wasiirka duulista hawada Omar kuwaas gaar madaxweynaha ula baa farmaajo halale ra'iisul wasaaruhuna qayb buu leeyahay laakiin kuwa waxaa jira aysan labadooda midna lahayn oo qabiilada aan laga cabsani leeyihiinoo midkii waxay ku tuhmaan inta caydaan bay ku qabiilkiisa keenaan Bayle marka waa wasiirada madaxweynaha uu leeyahay laba taabtaanka ee haddii far la saaro ra'iisul wasaaruhu xitaa uu far saaro isagu waa xilkiis waxa la yaa ka leex anaga la iska waxana Omar oo kale waxa la sheegay dhowr jeer in ra'iisul wasaaruhu isku dayo inuu xilka qaado laakiin la yiri waa laba taabtaan adaa ku dhawaan kartid marka wasiir Bayle arrintan waa la weydiiyey telefoonka muusan qaadin baa la yiri waa la waxa la rabay wax laga weydiiyey si kastaba haatee warbixinadan ama baaritaanada ay samaysay waxaa lagu sheegay in mashruuca isxilqaan iyo taalooyinka horta ra'iisul wasaaruhu uusan xafiiskiisa ogaanshahan uu og yahay laakiin uusan maartay wax shaqaa ku lahayn kaliya waxaa maartay wada madaxweynaha guddi uu magacaabay madaxweynuhu uu kor joogtay kor buu kala socdaa Bayle lacagtu hoosta ka turtay guddigaas marka miisaaniyadda isticmaalaan waxaa la yiri maartay taalooyinka lagu dhisay isxilqaan kuma jirtaa la yiri miisaaniyaddu ansixiyay baarlamaanka miisaaniyad iyaga u gaar ah oo maaragtay dawlado ganacsato iyo hay'ado caalami ka yimaada yaa waxaa lagu sameeyaa baa hawlahan lagu qabtaa waa toon baarlamaanka mar hore soo mar aad iyo aad marka mas'uuliyiin badan oo dawladda ah yaa la sheegay inaysan waxba ka ogeyn barnaamijkan isxilqaan iyo taalooyinka baaritaanka marka warbaahinta shameysay waxaa lagu sheegay in aan logeyn cadadka iyo tirada lacagta ku baxday wata ugu daran barnaamijyadan laakiin lacaga badan ay dabcan sida muuqata ku baxeen macadahay taalooyinka tayadooda waxay yihiin qaar baa dahab laga dhigaa taalooyinka qaar baa maar laga dhigaa qaar baa qalin laga dhigaa qaar baa dhoobo la ururiyay laga dhigaa oo ninba meel baa looga daray taalooyinkaasi qiimahooda iyo cadad quality tusaale ahaan taalooyinkii hore kuwan hadda waa la dayactiro dib baa loo cusboonaysiiyey laakiin waagii dawladda kacaanka Allah naxariistay jaalasiyaad dawladda hogaaminayay tusaale ahaan sida Cabdulla Xasan oo kale taaladiis waxa la sheegi jiray inay ahayd dahab laakiin kuwa hadda dahab ma noqon karaan sawiraantoodu ma aragnay dawladuna ma aysan faahfaahin waxa laga dhisay hatta sawirkooda dahab ma keen wax si yar madow ah aad iyo aad ilaa hadda dawladuna ma shaacin waxa laga dhisay laga sameeyay taalooyinkan cid kale oo warbaahinta ama shacabka Soomaaliyeed la wadaagtayna ma jirto waxa laga sameeyay laakiin kaliya in sawirro la sameeyay ay yihiin oo dadkan loo soo bandhigay bay warbaahintu waxa weeye muuqaalada iyo sawirradii ay og tahay marka intaas ka gudbaynaa waxa jira safiirka Mareykanka u fadhiya dalkan Kenya oo sheegay arrin la yaab leh maanta aad iyo aad la soo dhaxmaray aad iyo aad in waliba dawladda Soomaaliya kula taliyo ama ku cadaadiyay maxay tahay arrintaas safiirkaas muxuu ka doon warbixintan horta mar sii horeysay bishii June ayay daabaceen wargeyska ka soo baxay dalka Kenya gaar ahaan wargeyska ugu afka dheer ee Daily Nation ayaa safiirka wareystay warbixinta sidoo kale June waxaa lagu daawacay wargeyska The Star BBC da laanta afka Soomaaliya website-ka ayaa maanta lagu qoray in safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Kenya inka lagu magacaabay Kyle MC Carter uu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu la kulmay oo Muqdisho tagay oo uu ku caadiyay madaxweyne Farmaajo inuu ka baxo kiiska badda laguna xaliyo meel ka baxsan maxkamadda gardarna bil cadaabku maalin waxaan sheegaynay inuu iman karo cadaadis iyo xulufaysi dawladda Soomaaliya lagu cadaadinayo in kiiska badda ama meel ka baxsan badda lagu dhameeyo
ama ma baa meel ka baxsan badda lagu dhameeyo Koo. Soomaaliya Kenya markaas ay laba isleed U kala u kala qaataan murankan asaas U kala lagu soo baxo. afjaro Mhm. wixii aad moodaa hadda inuu wax soo babaxayo waxaan ogeyn maalmaha ay jireen mugdi iyo shaki fara badan oo ku aadan qaabka dawladdu ay u wado kiiska badda maadaama mar kale dib loo dhigo Kenya codsigeedii la aqbalay dawladdana la leeyahay sida xeerarka maxkamadda ay qabaan iyadoo laba dhinac aysan isku raacsanin kiiska inaan dib loo dhigi karin taas oo marka soo muujinaysa ama shaki gelinaysa in kiiskan dawladdu ay wax ku ogid in dib loo dhigo madaxweynihii hore Soomaaliya ogeyn Xasan Sheekh Maxamuud inuu walaac arrintaasi ka muujiyay dawladdana uu maarta ka codsaday in shacabka Soomaaliyeed jawaabaha u ooman ay maarta jawaabaha rasmiga ku aadan kiiskani ay la wadaagto marka safiirka Mareykanka ba hadda BBC marka waxay qortay safiirka xilliga uu Muqdisho kula kulmay madaxweyne Farmaajo inaysan cadayn ay Muqdisho tagay laakiin sida wargeysyada Kenya ay qoreen warbixintu waa bishii June ay wareysi wargeyska Daily Nation oo ka soo baxay dalka Kenya wareysi la yeeshay wuxuu sheegay safiirku inuu Muqdisho tagay madaxweyne Farmaajo oo la kulmay waliba uu ku cadaadiyay kiiska badda in laga qaado badda muxuu ahaa maxkamadda laguna xaliyo meel ka baxsan maxkamadda ee caalamiga ah ee ICJ warbixintaasi marka waxay muujinaysaa shakigii iyo walaacii laga qabay kiiska badda Soomaaliya si hadda maartay u maamulayso iyo qaabka hadda uu wax socdo ayay muujinaysaa in waxyaabo badan oo mugdi ah ay jiraan horaan dawladdu waxa looga bartay in mar walba maartay wafdiga tagayo kaleeta dadka maartay ay la wadaagto magacyadooda iyo maartay xilalka ay hayaan marka warbixinta ay soo baxaan warbixintii dadka ay la wadaagto guddiga markay soo laabtaan ay la wadaagto laakiin hadda macnaha kiiskii u dambeeyay ama markii u dambeysay Kenya ay codsatay in dib loogu dhigo wafdigii la diray shacabka Soomaaliyeed waxba maysan ka ogeyn xilliga la diray magacyadooda rasmiga ah iyo inta ay dhanaan tirooda cidna waxba kama ogeyn inkastoo markii dambe uu hadlay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo uu sheegay in maxkamadda ay tageen kadib iyagu ay ku adkaysteen inaan dib loo dhigi karin kiiska dhageysigiisa xilligii loogu talagalay oo November 4 ahayna maartay la dhageysto taasi oo marka maxkamaddu markii dambe ay go'aan gaartay dibna maartay loo dhigay oo muddo Kenya codsigeedii ilaa aqbalay marka si kastaba ahaatee hadalka marka safiirka iyo maartay Mareykanka mowqifkiisa dabcan uu ka turjumaya oo maartay Soomaaliya lagu saarayo culays iyo cadaadis in kiiska badda laga qaado maxkamadda kadibna lagu xaliyo meel ka baxsan hadiyad badda meel ka baxsan maxkamadda caalamiga oo Soomaaliya ay sheegtay in maartay ay ku kalsoon tahay in badda maxkamadda caalamiga ay go'aan ka gaarto wararkaas soo baxaya oo shacabka Soomaaliyeed aad bay walaac uga muujinayaan hadda qaabka uu socdo dawladda Soomaaliyeed waxa looga baahan yahay in ay shacabka Soomaaliyeed jawaab rasmi ah ka siiso sida uu wax socdo iyo qaabka maartay ay dawladdu wax wada iyo mowqifkeeda rasmiga wax uu yahay laakiin laga soo baxo aamusnaanta iyo maartay luq marowga aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa Barre Ilka Case oo inoo falanqeynayay guud ahaanba barnaamijkeena kormeerka wararka iyo kaftanka waxaana si wada jir idinku soo jeedinaya anigoo Cabdiraxmaan iyo Barre tan iyo intaan barnaamijka kan xiga isugu soo noqon doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo